maamulka jaamacadda Beder ayaa ugu hambaliyeeyay ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka waxaanay jaamacadda Beder ugu bushaareynaysaa ardayda ka soo baxday dugsiyada sare kulliyada cusub oo ay jaamacaddu bixin doonto iyo dhammaanba qaybaha ay jaamacadda Beder ka kooban tahay. Cali Goox Sugulle oo ah madaxa diiwaangelinta ee jaamacadda Beder ayaa fariintan u diray ardayda kala duwan ee ka soo qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka. dhammaan ardaydii reer Somaliland ee ka qalin jabisay ama dhamaysay ee ku guuleystay imtixaanka shahaadiga ee sanadka 2017 iyo 2018 jaamacaddu waxay leedahay hambalyo dhammaan ardayda ka qalin jabisay sanad dugsiyeedka shahaadiga waxayna u rajaynaysaa nasiib wanaagsan waxay kaloo hambalyeynaysaa dhammaan waalidiintii ka soo geystay gacanta caruurtooda halkaas soo gaarsiiyay waan u hambalyeynaa iyagana waxaan doonaynaa inay jaamacadda Beder ee caalamiga maanta iclaamiso in uu furan yahay laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16 bishii 9aad 2018 ilaa laga gaarayo 20 bisha 10aad 2018 inuu furan yahay isqoristii ama is-register garayntii ardayda cusub ee jaamacadda Beder ee ugu tala gashay inay isqoraan inay furantahay laga bilaabo maanta ilaa waqtiga aan sheegay arday kastaana uu chance iyo fursad u haysto inuu ka qayb qaato ama isqoro jaamacaddu sida aad ka warqabtaan ama aad ogtihiinba waxay caan ku tahay tayada xagga waxbarashada siday ka marxaati kaceen mujtamaca reer Somaliland tayo waxbarasho iyo kambaskeeda ama ofiskeeda xafiiskeeda ama kambaskeeda ugu horeeya oo ku yaala ugu weyn oo ku yaala magaalada Hargeysa bartamaheeda taas oo ardaygu uu soo gaari karo dhinac kasta oo ka xigo soo gaari karo si hore soo gaari karo jaamacaddu iyadoo ka duulaysa baahida iyo doonista ardayda iyo doorashada ay doorteen waxay u soo kordhisay sanadkan jaamacaddu kulliyado cusub oo kuwii hore marka laga reebo cusub hadda sanadkan la furi doono insha Allah taala kulliyadaha guud ahaan waxa kamida jaamacaddu ay idin hayso idin diyaarka kulliyada business administration-ka waxa kaloo kamida kulliyada accounting and finance waxa kaloo kamida kulliyada Islamic economic and banking waxa kaloo kamida kulliyada economic and political science waxa kaloo kamida kulliyada information and communication technology waxa kaloo kamida kulliyada shariicada waxa kaloo jaamacaddu idin hayso idin soo kordhisay bachelor of education oo ah physiomaths iyo biochemistry iyo geohistory oo loogu tala galay inay ardaydu ka faa'iideysto sanadkan cusub waxa kaloo ardayda jaamacaddu ay diyaar idin la tahay kulliyada luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga taas oo aynu ognahay ardaygu haddii aanu luqadiisu aanay dhisnayn inay ku adkaanayso waxbarashadu ama ay tahay luqadu ay yihiin miftaaxi waxbarashada ardayga u sahli lahaa inuu la qabsado waxbarashada dhammaan kulliyadahaas aan soo sheegnay jaamacaddu diyaar bay idin la tahay iyadoo ay idin dhigayaan macallimiin tayo leh oo macallin kasta uu mutakhassis ku yahay maadadiisa dhammaantiin waan idinku soo dhaweynaynaa kulliyadaha cusub. Cali Fahad, Saab TV, Hargeysa.